عائشة رضي الله عنها وحيلا هي حلقي جاهلية نكاح أفر قيوات بوها مركي النبي محمد إلهي صلى الله عليه وسلم هل مد بو كسر ريبي انتي كلنا باطل بو كدغ midka uu ka soo reebay waa midka gabadha waligeedu uu bixinayo meherna ay leedahay ka baa nabigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna nabigu yiri la nikaaha illa biwaliyin wa shaahiday cadl nikaax ma istaagayo mana ansaxayo illa in la wali la helo oo gabadha waligeedii la helo oo uu bixiyo iyo waxa weeyaan laba marxaati in la helo wixii marka la oran jiray meesha waxa ka baxaya qodbasirada iyo masaafada iyo waxaan qashinka ah oo waxa weeyaan magaalada aafeeyay dhalinyaradana waxa weeyaan baabi'iyay akhlaaqdiina dilay gabdhihiina waxa weeyaan sharaftoodii waxa weeyaan meel xun uga dhacay waxa ka baxaya meesha marka fagaarahan oo kale la iskugu yimaado oo gabadha waxa weeyaan waligeedu uu bixiyo oo intaas oo marxaatiyaal ay dhooban yihiin oo meher loo sheego xalaal barqacad baa la qashaa meesha waxa ka xasilahaya khayr iyo wanaag marka waxa weeyaan zawaajka hal la badiyo hana la fududeeyo oo taklifada iyo culayska badan hal laga daayo waxa suurtagal noqonaysa inuu sahlanaado ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidaasaana ilaahay raali ka yahay